الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. walaalayaal hadda waxaan uu soo kacay waxa weeyaan waxaan maqlay geerida ninka cali khaliif galeeb. waxaan leenahay isagana allahuma اغfir lahu warxamhu, allahuma اغfir lahu warxamhu, allahuma اغfir lahu warxamhu. dadkiisiina waxaan leenahay lilahi ma akhada walahu ma acطaa وكل بأجل فلتصبروا ولتحتصبوا. شيء والبا إلهي با نسيو له وأنا مركو سجن قاضنا أنا سجن وأنا قاطع وأمان كل جنة المارت نفسي الدور دم أمانة. إلهي هنون حرست كل جنة، إلهي هنون الدم بالعفو سجن إن شاء الله تعالى له الدم بالعفو. اللهم حرست هذا dadka oo maarta mas'uuliyiintiina waxaan leeyahay ninkaas hala keeno hala qiimeeyo qiimeynta la qiimeynayna laakiin qaabka gaalada aysan ahaan ee qaabka islaamka ha ahaato. janaazada iyo waxyaalaha loogu dadaalayo janaazada ugu weyn sagootiskaas ilaahayna looga ergeynayo janaazada ugu weyn janaazada ha loo badiyo. dadka oo ka dhashayna ama dadkii oo ka tegayna dadkale haday dad waaweyn yihiin waa alxamdulillah, haddii kalena hala wanaajiyo hana loo dadaalo. dadka uu ka dhashayna oo waxaan sheegayaa qabiilkaasna ayagana waxaan uga dardaarmahayaa ayaguna ha sabraano kulligood. allahna maarta musiibadoodana ilaahay ka kabo. dadka Soomaaliyeedna dadkaas waa kala dardaarmahaya qabiilkan sheegaya meel khatar ay ku jiraan ayagu waa ku dhiban yihiin oo waxa weeyaan labada dhanba waa ku dhiban yihiin. laakiin Soomaalida meel khatar ay uga jiraan oo waxa weey waa joint waaye meel xiriirka Soomaalida isu celiya ayay ku jiraan laakiin ayagu ku dhiban yihiin. marka waxaan leeyahay marka aad iyo aadkii arrintaas haloona qiimeeyo haloona ogaado. ninka kan anagu hadda maartay waxaan bartay markii qartay ay ka yimaadeen oo wali la cayimin laakiin warku uu tashi ku jiray waagaasaan bartay. marka dadkii maartay kulli Cabdiqaasim kula taliyana waa kamid ahaa. marka waxaan ku iri markiiba يعني aniga waxaan iri asaga si shakhsi ah ma aqaani laakiin waxaan iri qabiilka ayaa laba arrimood aan ku qiimeynaya oo mid waxa weeyaan Soomaalida dhama ila qabto waxa weeyaan waxa weeyaan waa xiriirka Soomaalida ayay maaragtay waxay ku yihiin maaragtay xibin muhiim ay ka yimaan silsilada isku xirta waa Soomaalida. markii hadda waxaan u jeeday maartay waqooyiga iyo koonfurka u jeeday silsilada maartay joinka isku xiraaxa yani silsilada isku xirta waayaan iri. marka mid anigana ii gaaraha jirtaan iri oo waxa weeyaan nimankaasu islaamkay waxay ku leeyihiin arrin maartay wanaagsan ay ku leeyihiin saam wanaagsan ay ku leeyihiin hiilay ku leeyihiin. marka waxa weeyaan saas darteeda markii uu maartay Cabdiqaasim la soo booday yiri saasa ku goosanay oo leh isagana Allah wanaaji. marka sidaas waaye niga hadda wax weeyaan hoos ugama warqabo oo khusuusiyaadkiisa ugama warqabo laakiin waxaan dareemay yani raggii uu siyaasiyiinta hayo hadda oo geeridooda aan maqlahayay nin hadda ishaydu ay ilmeysay asaga aan ka arkay ilaa hadda maartay sidii maartay qalbigu ka yahay laakiin kasoo dar hoos-hoosaan aan u aqoonin laakiin jawgaas aan iska dareemahay maartay inuu aad iyo aad shucuurkayga uu ku leeyahay.
waagii cabdiqaasim anigu waa garan waayey waa ninka keliya oo maaragtay ra-iisul wasaarenimadaas oo runtii firfircoonina ka muujiyey buu ahaa sidii ra'yigaygu ahaa waaye haddana isku dayay dowladdaas maaragtay Ethiopia oo maaragtay aan u haysano kolley dadka iyaga maaragtay inta badan aan u haysano inay arrimaha Soomaalida dhib weyn ay ku hayso yacni isku dayay inuu meel ka saaro Soomaalida oo qadiyadda Soomaalida siyaasigeeda uu ka saaro ninkii isku dayay uu ahaa waana u malaynayaa meesha looga yimid inay halkaas haydo oo cabdiqaasim kaliftiisa in culays lagu saaraan u malaynayaa oo Ethiopia ay ku saartay waa maladayda waay asaga kalama sheekaysan laakiin oo mana aanan weydiinin oo hadda isbaba aanan arkin sida badanaaba oo markaas mana aanan wada joogin markii oo carta waa markaas waa taladaas waa ku jiray laakiin markii dambe markii la casilayay imaaraadkan joogay marka xoogaa waa yaraha oo ka aadan uga xumaa oo maxaan marka laakiin waxaan ku qadarinayay maadaama Ethiopia uu maaragtay xoogaa culays uu saaray siyaasadda inuu ka saaro Soomaalida isku dayay meel walba waxaan islahaa cabdiqaasimka ayaa cilad waxa iskaga jirtay maaragtay yacni si oo loo aqbalo runtii isaga laftiisana Ethiopiaanku ma ay jeclayn laftiisa oo sidii maaragtay wadaadka cali wajiiza oo mar oo noo sheegay Ethiopiaanka gabar safiir u ahayd Djibouti maray ka sheekaysay waxay tiri maaragtay nin anfacaya maaha waa cabdiqaasimka u jeed nin anfacaya maahana waxa weeyaan waa islaamisti saddex qodob ay ku sheegto dhahay waa islaamisti waa maaragtay nin islaamka oo waxa weeyaan wuxuu yiri markii uu aan la sheekaysanayay 13 jeer oo maxkamadihii oo maxkamadaha oo amaanay tiri 13 jeer oo warkiisa ku soo celiyay tiri maartay uu soo maray asagoo waliba amaanahay mid kale waxay tiri waa nin maartay oo Soomaali weyn ay ku jirto oo marka adiga waxyaalo saasay ka sheegto in maartay ninkii anfacay aysan ahayn ay ka sheegto marka asaga laftiisa saas ahaa iyo kanooba maartay la soo booday inuu maartay dadkii oo nimankii maartay oo culays ku saaro in siyaasadda Soomaalida laga maartay ay ka baxaan oo maartay banaanka uu ka dhigo ayay ahayd marka waxaan u malaynayaa culays in lagu saaray maartay caynkaasina ahayd baan u malaynayaa isaguna uu siiri maartay ama oo caqabad uu yahay waxyaalo kale way sheegayeen kuwaan maartay xoogaa kuwaan cayrka ahaan waagi ku qabsadoon maxaa oo deedayaga budhiga u ahaa siyaasadda markaas marka laakiin wax macno laho hadda ay ii sheegeen male marka eedaan ugu haystay runtii waxaa iiga darayd oo aanan halmaamin runtii ninka la yidhaahdo markii waxaa isaga lagu bedelay xasan abshir markiiba Ethiopia u aadi waxyaalaha iga yaabiyay ahayd markiiba Ethiopia u aadi asagoo markuu Ethiopia ka soo noqday wuxuu naga soo maray imaaraadku nagu soo maray marka rag u tagaan kamid aha su'aashaana weydiiyay Ethiopia maxaad kala soo kulantaan dhahay markaasuu yiri warqad cad baan inta u dhiibni aan waxaan yiri waxa aad naga rabtaan ku qorto warqadan markaasi wuxuu yiri Mille Zenawi wuxuu dhahay yiri waxa aan Soomaali ka rabno warqadi ma qaado waligay ma ilooba hadalkaas waxaan Soomaali ka rabno warqadi ma qaado oo nagu dhowdhaa macna marka farqiga aad dareemaysaa labada nin oo isku bedelay maartay yacni meeshaasaan xoogaan maartay waxaan in maartay cabdiqaasim kaan maartay xataa aan eed uga dhigayo waxaan lahaa maartay yacni qaabka uu wax u socdaan iyo ragga waana ku malaynay ragga inuu maartay yaqaano oo markii hore dadka oo aad ugu malaynayay dadka inuu yaqaano ayay ila ahay marka ninkii saasa inuu ninkaas ku bedesho waxa weeye la yaabay markii dambana xataa wuxuu intuu dirsaday waa kii shirkii oo dhanka kale uga wareegay aad iyo aad
marka waxyaalaha oo maaragtay yani cajiibta lahoo kiiskaas iga soo maray ahayd. marka waxaan leeyahay maaragtay kolleyba ilaahay haw naxariisto, ilaahayna haw dembi dhaafo, ilaahayna maaragtay meel khayr le allah geeyo insha allahu tacaala. kiiska oo janaazadiisana hala wanaajiyo, doogta xabaashiisana hala wanaajiyo. waxyaalaha gaalada laga qaatay oo qashinka ahi yaan lagu samaynin, dadka ha ku samaynina. oo yani si qarana u duwayna waa sax, waa kuwa waafaqsana si qaran in maaragta loo qiimeeyo, laakiin waxa weeya waxyaalaha aan laga soo ergistay gaalada yaan meydka iyaga lagu samayn, aan lagu samayn. annaga qiimaha ugu weyn qofka maaragtay waxa weeyaan waa janaazada waay. wax qiimaha kale ugu fiican waxa weeyaan dadkiisi in wanaag looga maaragta looga daba maro oo looga haro oo maaragtay la wanaajiyo. khaasatan maaragtay qabiilkaas waa kasii dardaarmaya, jazaahum allahu khayr. isagana allah naxariisto, annaga dhanna allah noo naxariisto, meydka iyagoo dhanna allah noo cafiyo, meel khayr la kulligana allah na dhigo insha allah. dunya aakhiraba allah na wanaajiyo, dunya aakhiraba allah na wanaajiyo maaragtay. alladii aakhiraba allah noo naxariisto kulligana, allah na wanaajiyo, allah noo wanaajiyo. asalaamu calaykum.